kulanti wanaagsan qeyrta hawada nagala xiriidhay halkani waa telefishinka Universal Studios magaalada Muqdisho ku soo dhawaada wararka caalamka oo aan si toos ah idinkaga soo tabiyo studio telefishinka Universal magaalada Muqdisho wararkaygana waxa ka mid ah qaraxyo loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh soo gaarsiiyay dad shacab iyo mas'uuliyiin kuwaasi oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in maalinta berita ay qabanayaan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood adag ka yeeshay sharciga doorashooyinka horyaala golahaasi gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland ayaa beeniyay warar lagu sheegay inuu iska casilayo xilkaasi wararka dhanka dibaddana waxa ka mid ah qaramada midoobay ayaa eedeyn u soo jeedisay dalal ay sheegtay in ay faragelin ku hayaan xasilooni darrada ka jirta dalka Liibiya intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka u diyaar garooba warkaasi oo fidsan oo aan idin sii akhriyo warkii oo faahfaahsan waxaana xilliga idin waramaya anigoo ah Cabdicasiis aan ku bilaabay qaraxyo miino oo ah kuwa dhulka la dhigo ayaa waxa maanta ay ka dhaceen meelo ka mid ah magaalada Muqdisho qaraxa hore ayaa waxa oo ka dhacay oo ahaa miinooyinka dhulka la dhigo deegaanka Xoosh ee degmada Dharkiiley ee magaalada Muqdisho qaraxaasi waxa ku dhaawacmay gudoomiye ku-xigeenkii dhanka amniga degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Cabdinaasir Xasan Cali waxaana ku geeriyooday laba ka mid ah ciidamadii ilaalada u ahaa gudoomiyahaasi gaariga oo qaraxa loo dhigay ayaa ahaa nooca baabuurta dusha ka furan oo askarta ay fuulaan isla markaana lagula eegtay qarax xilli uu marayay deegaanka Xoosh ee degmada Dharkiiley ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha dhaawaca uu soo gaaray ee ka tirsan maamulka degmada Kaxda dhanka kalentana deegaanka Ex Control Balcad ee magaalada Muqdisho baabuur kolaya oo ay la socdeen ciidamada nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM ayaa lagula eegtay qarax miino dabadeed qaraxaasina waxay fureen rasaas lamana oga khasaaraha shacabka ka soo gaaray rasaastaasi AMISOM ay fureen baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee magaalada Dhuusamareeb oo maanta kulan ku yeeshay halkaasi waxa ay sheegeen in maalinta berita ay qabsoomi doonto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi galmudug sida uu ku soo waramayo wariyahayga magaalada Dhuusamareeb Maxamed Cabdiweli Taxow kulan ay maanta magaalada Dhuusamareeb ku yeesheen baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa lagu shaaciyay in bari ay dhici doonto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug kulanka oo ku saabsan nidaaminta iyo habsami socodka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayuu gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal wuxuu ku dhawaaqay in maalinta bari ah ee Axad ah ee 2 Febraayo ay dhici doonto doorashada madaxtinimada ee galmudug fadhigayna sideedaad kooramka oo noogu guntamayo waa 57 xildhibaan waxaan ajandahaynu maanta yahay ansixinta ajandaha furitaanka fadhiga habraaca doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlaya gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa galmudug Cabdiraxiin insha Allah annaga wixii aan soo qaban karnay iyo dadaalka iyagii maanta wuxuu marayaa inaan soo gudbinayna habraaci doorashada habraacaas isaga haddii Ilaahay yiraahdo bari subaxii tilmaamaha aan maanta bixin doono wuxuu noo noqonayaa wax ama ummaddu nagu amaanto ama ay nagu maaragtay nagu dhaliishaas guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka xildhibaanada halkan fadhiya dhammaan way taabanaysaa mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa isagu waxa uu madasha ka akhriyay habraaca loo marayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka kow fadhiga shirka waxaa si rasmi ah u furaya guddoonka baarlamaanka
galmudug kadib marka uu hubiyo tirada uu ku furmayo kooranka waxaa laga rabaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka 10 xubnood oo mooshin soo jeedin ah ka keenta musharaxnimadiisa si uu baarlamaanku ku aqbalo waa qodob dastuuri waa la raacayo waa qodobka 47 farqadiisa labaad musharaxi 10 xubnood ee ka qayb noqota musharax soo jeedintiis waxay ka qayb qaadan kartaa laba musharax oo kale in ay soo jeedin ka soo sameeyaan xildhibaanada galmudug ayaa lagu wargeliyay inay dhammaantooda soo xaadiraan kulanka berri ah oo muhiim ah maxamed cabduuli taaxow TV-ga Universal Dhuusamareeb golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood adag ka yeeshay sharciga doorashooyinka qaranka kaasi oo ay horey u soo ansixiyeen baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya warbixintaana waxaa sii dhamaystiraya wariyayga Maxamed Ibraahim Bulbul xildhibaanada baarlamaanka golaha aqalka sare ee dowladda Soomaaliya oo maanta Muqdisho ku yeeshay kulankoodii 34aad ee kala fadhigii 6aad ee baarlamaanka aqalka sare ayaa waxa ay kaga doodeen hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka ee heer federaal kulankan waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaana ku wehelinayay ku-xigeenadiisa xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee maanta soo xaadiray kulankan ayaa siyaabo kala duwan kaga dooday sharciga doorashooyinka qaranka oo hadda hor yaala baarlamaanka aqalka sare sharcigan doorashooyinka qaranka waxa horey u soo ansixiyay baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya haddana wuxuu hor yaalaa baarlamaanka aqalka sare haddii ay ansixiyaan waxa uu u gudbayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo awoodii madaxweynaha marka annaga ayagoo aan sharcigii dastuurkii wadanka aan wax laga bedelin ma annagu sharcigan hadda aan hayno aan awoodiisa ku bedeli karnaa waa maya aniga lama muuqato waxaan aaminsanahay marka sharcigan dib in loogu noqdo labada qodobkaas isaga in dib loogu noqdo oo la waafajiyo dastuurka madaxweynaha wuxuu ka imaan karaa xisbiga guuleystay labada baarlamaan baana dooranaya qodobka la rabo in la waafajiyo sharciga wuxuu noqonayaa haddii uu madaxweynaha xisbigii guuleystay hadduusan madaxweynaha ka imaanaynin oo xisbi waxa lagu tartamayana ee xisbi tahay maxaan anagu u daalaynaayoo xisbi la iskugu daalinayaayoo loo tartamayaa oo dhibaata loo gelayaa ilaan dastuurkii wax isbedela laguma samaynina muxuu ahaa qodobkii dumarka waxaan rabnaa sida gabdhaha ay sheegeen inay noogu caddahay haddii gorgortan lagama galaayo haddii ayan ku caddeen annaga 13 gacanteena dhulku yaalaa haddaa noogu arxantaana waxaan xaqa u leenahay waayo waxaan idin weydiinayno ma ahan wax aan leenahay aan idin xagxagano meeshii laga goynayay sharciyadan joognaa sharcigan guddiga runtii si fiican uga soo shaqeeyay hambalyaan leeyahay sidii loo soo horeeyay waxyaabo badan ay ka bedeleen shaqo fiican ay qabteen waana waxaan qabaa inuu yahay sharcigan sharci muhiim u ah oo ku taagan yacni nolosha iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed si dhab ah qodobka marka meelaha rabo inaan ka waa lagu nuucsaday intii qodobadii ka hadashay qodobka 12aad iyo lagu soo nuucsaday wax badan waa la qabaa intay ka yiraahdeen 18 gobol ani waxa aaminsanahay 18 gobol marka horeba sax ahaynba waxa sax ah annaga federal waxaan ka soo maanguurinay wadamo kale marka inaan sidoodina u dhaqanno aan didnana sax ma aha Mareykan waa konton state kontonki waxay u wada qaybsadeen labo marka anigu waxaan qabaa meeshan dadna la qaatay 11 dadna 8 ay haystaan sax ma ahane 11 kana la wada siiyo Maxamed Ibraahim Bulbul Universal TV Muqdisho gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland oo wariyaasha kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa been abuur ku tilmaamay warar laga faafiyay oo sheegayay inuu iska casilayo xilkaasi sida uu ku soo waramayo wariyahayga magaalada Hargeysa Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa waxa uu maanta meesha ka saaray inay jirto wararka sheegaya oo maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada lagu faafiyay in gudoomiyaha Salebaan Maxamuud Aadan uu iska casilayo xilka gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland oo ku fadhiyay muddo 13 sano Salebaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland oo qaar kamid ah warbaahinta kula hadlay xarunta golaha guurtida ayaa sheegay warkaasi inaanu jirin kiinan war fidiyayaashu
warka anigu idinku maadin ka maqlaaya iyo jaraa'idkiina anigu waanigan dee kursigii fadhiya idinkaa iga kicinayay warraba niman golayaasha waan arkay oo dee aan sidii warka idinka keenay madaxweynena inuu xogogaaliyaa filay markaa ciday arrintaa ila soo qaaday idinkuna idinka yimi idinkuna idinku dambeeya dee noo jeeye dee yidhi baalka waa la kala riixda dee ha yimaado ninkii iga riixayaa maxay war caafimaadkaygu waa taam wax daa ka badan ima hayso haddaad daada waxaan yidhi wax igala qabanaysaana ahlan wasahlan dee way dhici kartaa in rag kursiga damaaciye dee u daaya dee waa tartane kayaga u adkaadunbaa la arki doona cabdirashiid cabdiwahaab xuseen universal t v hargeysa haatana magaalada jabuuti tartan dhinaca orodka ah oo sanadkiiba mar lagu qabto dalka jabuuti ayaa maanta ka qabsoomay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti tartankaasi orodka waxaa soo qabanqaabisay shirkadda isgaarsiinta ee dalka jabuuti wariyahayga axmed cabdikariin macalin ayaa warkaa inoo soo diray orodkan oo ah mid sanadlaah oo ay qabato shirkadda Jabuuti Telecom waxaa ka qayb qaadanayay orodyahano kala duwan oo ka kala yimid qaybaha bulshada waxaana tartankaasi goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin oo ka mid yahay madaxa shirkadda Jabuuti Telecom Maxamed Casow Buux oo iyagu tartankaasi qabtay iyo mas'uuliyiin ka socday xiriirada ciyaaraha Jabuuti orodkan oo 15 kiiloomitir ah waxaa garab socday laba tartan oo kale 8 kiiloomitir oo rag ah iyo 5 kiiloomitir oo dumarka ah waxaana orodkaasi kaalimaha hore ka galay dhalinyaro u ordaysay qaybaha kala duwan ee ciidamada oo ay ka mid yihiin ciidamada booliiska iyo ciidanka ilaalada madaxtooyada markii orodadaasi soo dhamaadeen ayaan wax ka weydiinay dareenkooda qaar ka mid ah dhalinyaradii kaalimaha ugu horeysa ka galay tartamadaasi xasiila darane wallahi waxa badiyay crosski calsabeex anaa qofka horeeyaa kadibna waxa ku xigsiiyay karoonbaada imikana waxa yimiday Jabuuti Telecom mid kiloogi أنا أقول ليست لما نروح سلام يا سيفك كيجا محمد جامع إياه كفتن كيجا عبدو جيدا لما أصحاب كذا كلمات يدور السنة دو سلام يا شقدي والله يوم أورد كانوا بس يدل كي جد والله سابيو لوبيك سابيو دمنات أنت عارف برجين إن شاء الله والله الحمد لله أم هابي والله وأنا فرح سنة شن سنة كهرباني يقدم بيسي كاس كيلومتر كأنت بدن ميت كان ورد شري مركها ما أنت 5 sano ka hor baan ayaan orday December maanta markaas saacadii baan jibiyay saacadii hore taali marka wallahi dadaal badan ma soo sameeyay in badan baan ayaan training gareynay waxaan ku faraxsanahay inaan si fiican u ordo ilaahay baan mahadnaqayaa sidoo kale federaasiyooga iyo shirkadda Telecom ee orodka soo abaabushay happy baan ku ahay wallahi alxamdulillah oo anu imika waxaan ku orday karontikaad yar baan malaynayaa laakiin saacadii hore taale karontikaad 59 inay meelahayd baan malaynayaa markaas wallahi waa dadaal badan ma soo sameeyay alxamdulillah wallahi waan ku faraxsanahay am happy wallahi markii orodkaasi soo dhamaaday ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha shirkadda telefoonada Jabuuti Telecom Maxamed Casow Buux waxaana ka warbixiyay dareenkiisa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay tartankan ay soo bilaabeen oo hadda maraya kiisii 12aad waxaa sidoo kale isna warbaahinta tafaasiil ka siiyay mid ka mid ah mas'uuliyiinta xiriirka ciyaaraha Jabuuti horta farxadda ugu horeysa waxa weeyaan markaad aragtid waxa oo dhalinyaro ah oo orodka soo xuliso ka soo qayb gasho ku talagalay nin kastaba ninku doon hamatulu amba askar hamatulu amba shicib ha hadaba inuu orodka ku guuleysto taa anaga waxaan noo tahay hadaan maantana Federation Jabuuti Atletismiga iyo Jabuuti Telecom oo baqtanaya ku soo hogaamiya sanadkaasi orodkan on 15 km Jabuuti Telecom anaga farxad iyo noo tahay ta kale labaad farxad weyn maanta anaga xagan nooga sii tahay waxa weeyaan dhammaan dhalinta aad ugu soo tartantay ciyaal 8 km 5 km oo gabdhaha oo xoog u tartamaya ha noqoto gaar bikaanga ha noqoto ciidamada ha noqoto booliiska ha noqoto gaarda koodka waxa oo ciidan ha noqoto universityga ha noqoto ekibada civilka oo doonaya had iyo jeer inay guul kala soo hidaan xagan waxa kale horta mahad aad ugu celinayna dhammaan askarta
waddankeena ee booliiska oo si gaara aad noola soo qaban qaabiyey orodkan oo dhammaan meel kasta ay orodku soo maray si fiican wallahi dikada noola qabtay kuwaana mahad gaadan cunina dhammaan shacabka reer Jabuuti oo shacabka aad ugu tumay waxa intaas noo raacay waa maxay orodkani waa markii 12aad markii 12aad waxa ka dhigan tahay waa partenariat aad u culus oo Jabuuti Telecom iyo Federation Djiboutian d'Athlétisme ay xoog iskula qaban qaabiyaan sanad kasta orodka 15 kilomitir oo hada jeer bisha janvier ku beegan waxa anaga haday Federation Djiboutian d'Athlétisme aan nahay bacdama madaxweynaha aanu aan president yahay waxa farxad gaar ah partenariat-gan oo sanad kasta sanadkii ka sii adkaanaya hada jeer anigu hadaan president Federation d'Athlétisme yahay inay orodku wax qora ee ninka soo hor Djibouti meel ka soo ka degan yahay amba mulxlaad degan amba loo yacdaad meesha doon hada degan waxa qora ee uu sameyn karayo uga baahneen muayyan badan inuu galiyo in la galiyo isaga shakhsigiisa isaga lugiisa uu ku soo saari karayo orodka inay tahay marka aan waxaan u hambaleynayaa dhammaan shacabka reer Djibouti Ahmed Abdi Karim Mohamed Universal TV Djibouti warkana magaalada Muqdisho maama Zahra Sheekh Xuseen oo ah hooyo Soomaaliyeed isla markaana muddo 28 sano ka badan kaydinaysay agabka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida oo warbixin gaar ah ka diyaariyay telefishinka Universal ayaa waxa ay sheegtay in dhawaan ay soo bandhigi doonto agabka hidaha iyo dhaqanka oo ay muddadaasi dheer kaydin jirtay wariyahayga Cali Duruus Bershiya oo howlo shaqo ku jooga Universal TV magaalada Muqdisho ayaa warbixinta inoo diyaariyay kan waa qumbe intii taqaan qumba la yiraahdo harag baa laga sameeyay kana waa saabkii waa qumbaha saabkiisi qumbahaas subagaa lagu shubaa asaga subagaa lagu shubi jiray weligiis baa laabay wixii lagu shubaa harag bay ka suubin jireen waa qumbe hooyadan oo lagu magacaabo Sahra Sheekh Xuseen isla markaasina ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxay hooygeeda ku ururinaysay muddo 28 sanadood agabka hidaha iyo dhaqanka ee Soomaalida oo isugu jira kuwa hore oo si dabar go'aya iyo kuwa ilaa hadda laga isticmaalo deegaanada Soomaalida hooyo Sahra waxay sheegtay in iyadu ay lacag ku bixiso alaabaha hidaha iyo dhaqanka kana iibsada cidda u keenta hooyo waxaa jira ilaahay ummadiisa cid waliba shaqay leedahay amal bay leedahay ay u jarmaado waxaa jooga dad alaabtaas inay ka biix mushtaraan ku shaqaystaa jooga dadkaas ku shaqaysta baan u adeegsaday markaad u adeegsato aad keento ood ka iibiso ayaguna himad bay sii helayaan markaasay meel walba gelayaan guri walba gelayaan xas walba gelayaan baadiye tegayaan markaasay soo aruuriyaan anna waa ka iibiyaan waxaan u waxeeyey markii aan arkay hidiya dhaqankii suugaantii af Soomaaligii wixii aanu lahaan jirnay oo sii gurahaya oo sii dhamaanaya markaa arkay waxaan iri kaalintee baad ka geli kartaa waa gurnay kaalintee ka geli kartaa markaasaan waxaan ogaaday tii anigu aan hidaha u lahaa waa alaabtan hidiya dhaqanka ah yaan awalba jeclaa alaabtii inaan aruuriyo yaan isku dayay waxaana hadda iguba khasbay waayaan dambe wixii oo dhan oo sii socdo oo dhammaanaya arkay inaan caruurta adinku aad ka mid tihiin inaan idiin xafido oo idiin celiyo hidihiin iyo dhaqankiin dhalinyarada Soomaalida ah ayay hooyo Sahra waxay kula dardaarantay inay hidaha iyo dhaqankooda ku adkaadaan bartaana waxaanay hadda qorsheynaysaa inay dhawaan soo bandhigto buug ay ku sawiran yihiin dhammaan agabka goobta yaala iyo mid kasta wixii uu qaban jiray kaasoo in muddo ah ay ku hawlanayd kataalooga weyn oo qurux badan inaan ka sameeyaan rabaa kataaloogaha waa waxa dhalinyarada anfacaya hadda waa la keenayaa mar dhow kataaloogihiyo oo aan soo suubiyey insha Allah haddaydnaan dhaqankiina adkaysan ee aad dadka aad la joogtaan aad ku milantaan aad sidooda u fakartaan sidooda u labisataan sidooda u dhaqantaan waxaad tihiin dad qaawan oo meelay ka yimaadeen aan la aqoonin cishada dhaqankiina hidihiina ku faana waxaad ku faantaan ba hadda ma qabtaan ayagii baad ka mid tihiin ummadii aad la nooleydeen ayagii baad ka mid tihiin
hadiya cabdiraxmaan jaamac oo ka mid a gabdhaha ay dhashay hooye sahre sheekh xuseen ayaa waxay sheegtay in tan iyo yaraanteedii ay arki jirtay hooyadeed oo ururinaysa agabkani iyada qudheeduna ay ka baratay agabka hiddaha iyo dhaqanka ah oo qaarkood aanay waxaan kusoo aniga shakhsiyan aan kusoo barbaaray intii aqligayga aan lahaa waxaan xasuustaa hooyo oo mar walba dhaqanka Soomaaliga mar walba ayidaysa mar walba horumarinaysa dadka u sharxayso Soomaali ajnabiba ah haddayna joogno Soomaali gudaheeda ama haddayna joogno dalka banaankiisa hooyaday waa dadka farqu tiriska oo Soomaaliya maanta runtii aan oran karo aad u fahansan una dareensan qiimeeyana hiddihi dhaqankeena waa Idris Bershiya telefishinka Universal Muqdisho mahadsanid Idris macadka shaqaalaha Somaliland ayaa bilaabay waxbarashada heerka labaad ee masterka digriga iyadoona macadka iyo jaamacadda Jigjiga ay maanta heshiis waxbarasho ku kala seexdeen magaalada Hargeysa sida warbixinta warkan oo Hargeysa kaga soo diray wariyahayga Mukhtaar Ismaaciil Cali waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu kala saxiixday heshiis dhanka waxbarashada heerka labaad kaasi oo u dhaxeeya macadka shaqaalaha dawladda ee Somaliland iyo jaamacadda Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi xubno ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Somaliland mas'uuliyiinta jaamacadda Jigjiga iyo macadka shaqaalaha dawladda mas'uuliyiinta hay'adaha madaxa bannaan ee Somaliland iyo aqoon-yahan waxaana halkaasi ugu horeyn hadal ka jeediyay agaasimaha macadka shaqaalaha dawladda guuleed hagoog iyo gudoomiyaha shaqaalaha dawladda Farxaan Aadan Haybe maanta maxadku waxa uu la 15 jirsanayaa inaynu ku daafurno munaasabadan aynu ku bilaabayno waxbarashada jaamacadda heerka labaad ee masterska hawshan imika uu iska bilaabmin maxadku intii uu soo jirayba waxa uu marba tallaabo kor u qaadayay sidii uu kor u qaadi lahaa tayada shaqaalaha dawladda isagoo ku bilaabay tababarro gaagaaban dibloomooyin degree imikana master maraya mar kastana barnaamijyadu waxay ka turjumayeen baahida dhabta ah ee waddanka ka taagan aakhirkii lafagurid fara badan waxaan isla garanay inaan ku bilowno barnaamijkan maanta halkan aynu joogno oo ah master's degree ardaydu ay ku qaadan doonaan shaqaalaha dawladda iyo dadka qarankuba ay ku baran doonaan disaster risk management and sustainable development ama maareynta khataraha masiibooyinka iyo horumar waara disaster risk management iyo sustainable development inta badan wuxuu u habdhacaa marka la eego saddex qaybood qayb waxa weeye preparedness oo sidii loogu diyaar garoobayo masiibooyinka intaanay dhicinba masiibadu in qarankeenu awood iyo aqoon u yeesho inuu saadaalin karo oo u diyaar garoobi karo iyo response oo waxa uu ka bixinayo iyo siduu u waajahayo iyo recovery oo ah sidii dadkii masiibadaasi ku dhacday looga soo kaban lahaa wasaaradahan iyo hay-adahan aanu markaas soo casuulnay saddexdaa habdhac ee programkani ka jawaabo ee qofka bartayna uu capabilitygeeda iyo capacitygeeda yeesho waxaan u soo casuulnay inay u noqdaan wasaaradaha ay ka imanayaan dadka loo tababarayo waxa iyaguna madashaasi hadalla ka jeediyay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Jigjiga waxaana ka warramay muhiimadda uu iskaashiga labada dhinac u leeyahay heshiiskani waxa ka go'an jaamacadda Jigjiga inay la yeelato xiriir istiraatiijiyadeed oo dhinaca waxbarashada iyo daraasaadka guud ahaan wadamada ay dariska yihiin gaar ahaanna jamhuuriyadda Somaliland waxa iyaguna madashaasi ka hadlay xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo mas'uuliyiinta hay'adaha madaxa bannaan ee munaasabadaasi ka soo qayb galay marka runtii waa arrin saameyn badan nolosheenna dhammaanteen ku leh shacbigeenna oo dhan runtii ku leh waa arrin u baahan runtii in aqoon iyo khibrad iyo waaye aragnimo iyo farsamaba runtii in loo helo ay muhiim tahay marka aad iyo aad baan runtii ugu ammaanayaa maxadka master's degree iyo maxadku waanu ka wada shaqayn doonaa inaan maareyno courseska maxaan ku dhahdaayay masterka shaqaalaha gelaya inaynu maareyno waanaynu maareynaynaa
mukhtaar ismaaciil cali telefishinka universal hargeysa. soomaalida ku nool waddanka koonfur afrika ayaa waxa ay walaac ka muujinayaan sharci dhowaan ay soo saartay dowladda waddankaasi koonfur afrika, sida oo warkan magaalada Cape Town kaga soo diray wariyahayga xasan kaafi maxamed shire. dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani koonfur afrika ay soo saartay in ay wax ka beddel ku samaynayso sharciga la siiyo dadka qaxootiga ah ee ku nool dalkani koonfur afrika, iyadoo durbadiiba arrintaasi ay saamayn ku yeelatay ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani koonfur afrika. cali daa'uud waxa uu ka mid yahay ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika, waxaana weydiinay bal sida ay arrintaasi wax uga jiraan iyo saamaynta uu ku yeeshay ganacsatada soomaaliyeed ee dalkani koonfur afrika. dhibaatadu waa iska jirtaa waddanku, ma ahan mid yacni shalay iyo daraad bilaabatay. waddanka waxaan ku joognay waxa la dhaho nolol iska xur ah, laakiin yaro waxaa moodaa maalmaha dambe in sharciga aad iyo aad yacni dhibaatadiisa ay soo badanayso. goobaha sharciyada laga bixiyo wax badan ayaa laga beddelaa sharciyada, ha naqato 4 sano, ha naqato 6 bilood, ha naqato bil. waxaa jiri jiray waxyaabo la dhahaa permit holder ee sharciga qornaa jirta, hadda visa holder laga dhigay. micnaheeda waa problem aad weyn nagu soo siyaaday. kulley waxay naga doontaa Allah aclam, dawladda og iyo ujeedaday ka leedahay. kulley mana la hordhici karo, dhihi ma karna, yani saasay naga doontaa. laakiin dadku waa hadlaan markii yani meel isku yimaado waxbay sheegaan. yani waxyaabaha sheegidda waxaa ka mid ah in visa holder ay ku joogto oo waddanka si yani visa ay ku joogto oo yani go'aan laga qaadan karo anytime. laakiin kii hore wixii ku qornaay iyo kan wax ku qoran labay kaliya waxay laba kula naga galaan visa holder markii lagu dhaho yani idmiinaysa visa ugu joogta waddanka. afrax bal sharcigaas inta aad ka og tahay maxay nooga sheegi kartaa? sharcigan cusub saamayn weyn ayuu Soomaalidu ku yeelanaa. anigu maalin dhaweyto Home Affairs-kan tagay, wiilal la soo siiyaan arkay, nin immigration lawyer ah oo saaxiibkay aan ka warsado dhaay sharcigan saamayn intee laag ayuu Soomaalidu ku yeelan karaa. waxa uu ii sheegay halka ay permit ku qorneed ee hadda visa loo bedelay in ay u fududaynaydo qolihii macnaha immigration officialka ah inay macnaha dadka si qof kaligeed go'aan ka gaari karto. waxa fududaanayo in qofkii deportation lagu sameeyo iyadoona maxkamad la marsiin oo reject la siin oo appeal boardki iyo wixii oo dhan meesha laga saaraa. marka waxyaabo badan ay isdiidan, laakiin kullayba waa dhib soo kordhay. waa tahay dhanka kale dhowaan safiirkii Soomaaliya ayaa waraaqaha laga gudoomay, safiir maxamed cali mire nabadoon, waana safiirkii Soomaaliya. dadkan Soomaaliyeedna dabcan dadka uu safiirka u yahay ayay ka mid yihiin. ma jirtaa wax ku aadan oo ay jaaliyaddu uga baahan tahay safiirku inuu wax ka qabto arrimahan sharciga ama uu dawladda dhankeeda kala hadlo? waxaanan ka rajaynaynaa safiirka cusub inuu xilkasnimo iyo dhaqdhaqaaq dheeraad inuu muujiyo si pressurekan saar hadaan qaxootina oo nooga fududeeyo. waan ka rajaynaynaa, waana ka codsanaynaa hadaan qaxootiga ku nool waddanka South Africa. si kastaba ha ahaatee dhowaan ayay ahayd markii safiirka Soomaaliya ee dalkani koonfur Afrika maxamed cali mire nabadoon waraaqihii uu ka gadoomay madaxweynaha jamhuuriyadda South Africa Ramaphosa, waxayna jaaliyaddu codsanayaan in safiirka cusubi oo wax badan ka qabto arrimaha dhibaatooyinka ay ku soo wajahan Soomaalida ku nool dalkani koonfur Afrika. xasan kaafi maxamed shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town. gudoomiyaha gobolka Awdal ee Somaliland ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray qaar ka mid ah culummada magaalada Boorama, sida uu ku soo waramayo wariyahayga magaaladaasi Xuseen Ataya Jaamac. salaadii jimcaha ee maalintii shalay toolyo ahayd ayaa waxaa masaajidada Boorama aad loogu soo hadal qaaday hadal la sheegay inuu ka soo yeeray barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali, kaasi oo ah in xaflad ka socotay hoteelka Rays ee magaalada Boorama uu ku dhaxayay diinteena islaamka ah. haddaba barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa maanta haddaba xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta kana jawaabay hadalkaasi, waxaana sidoo kale uu ku eedeeyey mid ka mid ah culummadii maalintii shalay toolyo ahayd hadalkani soo qaadatay ee kaga hadlay masaajidada magaalada Boorama ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab. shalay oo ay jimco ahayd waxa masaajidada qaar ka baxay in laga yidhi oo weliba anigu nin baan haystaa, ninkii miidiyaha ka hadlanaysa
iyo wixii kale miidiya ka hadlayba diintu caayay barasaab iyo ilaahay iyo nebiga dabadeedna axaadiis buu akhriyo wuxuu yidhi waa dil dabeedna wuxuu yidhi ha la dilo waa xasan daheeye hanuunka daawado ma ka hadlaya qaar haddeer hadlayna waa la sheegaya wuxuu yidhi warkaa lay sheegay anigu goobjoog kamaan ahayna waan maqlay rays buu ka yidhi xaflad buu ka yidhi barasaab waxaan idiin sheegaya marka ugu horeysa horta qof islaamaan ahay laa ilaaha ila allahu maxamedu rasuulullah ku shahaatay oo islaamku ah marka labaadna mas-uul baan sabab aan diinta ku caayay iyo ilaa qofku intuu xaflad tago diin iskama caaye xaflad baaba layga yeedhay oo waa munaasabad aan diin ka caayay ma jirto oo meesha rays la yidhaahdo oo aan diin ka caayay ma jirto nin diinta caayana mihida islaam baan aho mas-uul bane munaasabaddaa layga yeedhay raggii kabarada hayay ee duubayey baa haddeer qaar halka joogaan kabarad baan haysay not inay ahayd wax ciyaar iyo safaad iyo qofba wuxuu doono iska odhanayaba oo aan la helayn kabaradday markhaatiya labada arrimood xasan daheeye raaciyey horta xasan masaajidkan wuxuu ka dhigtay orientation maaha maalintii ugu horreysay ka hadlo maalintii ugu horreysay ee uu cid ka maago ama ka caayona maaha wuu caadaystay xasan waa nin al-shabaaba oo ku dagaalamaya dowladdaa dhan ee jirta doonaya inuu afku rido dabeedna cidlo ka helo halkay qalanka ka dagaalamayaan saaxiibadii ay kaga dagaalamayaan hub waxaan sheegayaa inuu isagu doonayo inuu afdagaalamo dowlad ku kala kaxeeyo qabaa'il dadka isugu diro waa nabiibihii waa beenaale waa kadaab dowlad baa dalka ka jirta xasan daheeye dowlad kama aha haddaan caddaynaya al-shabaab qayb ka midoo boore ma joogto weeye oo ku dagaalamaysa inuu dowlad afku burburiyo kumana burburin karo wallaahi in lagu burburin karo xuseen hateeye jaamac xuseen gaafne universal t v boorama weli wararkii somalilan ayaan ku guda jirnaa guddoomiyihii xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka saaxil ayaa iska casilay xilkaasi sida uu ku soo warramaya wariyeyga magaalada berbera cabdirashiid cadare gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka saaxil sheekh salebaan siciid cali oo maanta warfidyeennada kula hadlay gudaha magaalada berbera xarunta gobolka saaxil gaar ahaana hotel diamond ayaa waxa uu shaaciyey inuu si toose iskaga casilay xisbiga mucaaradka wadani waxaanuu sidoo kale hoosta ka xariiqay inuu gebi ahaanba siyaasadda uu iskaga bixi doono waa siduu hadalka u dhigay sheekh salebaan siciid cali oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu raaligelin ka bixi dhammaanba qardoofihii siyaasadeed ee soo kala gaadhay isaga iyo siyaasiyiinta dhiggiisa sidoo kale sheekh salebaan siciid cali waxa uu raaligelin buuxda hawada u mariyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi isagoo muraadsi ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa runtii waxaa la dareensay baryahan baan muddo dheer baan siyaasadda ku jiro 10 sano ah oo 10kaas sannadood way aad bay u dheerayd oo aad bay ayay u dheertay marka aniga laftaydu waxaan naftayda ku qanciyay aan isla qaatay inaan imika iska yar nasto oo customerskayga laftoodii bay maadaama ganacsi ballaadhan aan leeyahay imikana aanu anigu naftayda horumarinayo ku jiro horumarin xagga naftayda ah iyo xagga aqoontaydaba aan ku jiro anaa naftayda ku qanciya aniga laftaydu inaanan wax siyaasada haba yaraatee ku jirinba markaa taasina runtii waa go-aankayga intii aan siyaasadda ku jiray 10 sano aan ku jiray maraan xil hayay maraan xil hayn qaar waan xidhay qaar wax kale aan ku samaynay qolaba dhinac bay kulay dad nooga cabataa qaar hadal bay ka cawdaan iyagana halka waxaan ka raali gelinayaa wixii kulay siyaasad wax nagu dhex mareen oo dhan
waxaan leeyahay cafi xaggaygana cafi siya saaxiib waa ka tiin xaggiinana waxaan ka rajaynayaa inaynu iscafino hadalladii u dambeeyeyna madaxweynahaanu isu marinay miidiyaha isagana madaxweynaha runtiisii waxaan leeyahay maadaama beyjkaa hore xidhay isagana waxaan leeyahay saabaxlaakum taasuu ku jiraa aad iyo aad baanaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo xukuumaddaba wada shaqayn ballaaran baana runtii naga dhexaysa. cabdirashiid rooble cadareeh universal t v berbera. qaybaha bulshada ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay khilaafka iyo doorashooyinka ka jira magaalada Dhuusamareeb. wariyahayga Maxamed Cabdiweli Taxow ayaa warka inoo soo diray. xilli wali kulamo siyaasadeed ayaa ka socdaan magaalada Dhuusamareeb ayaa haddana dad badan waxay isweydiinayaan sida ay u dhici karto doorashada madaxtinimada maamulka Galmudug maadaama wali aan xal laga gaarin khilaafka ka dhashay doorashada Galmudug. kulamadan ayaa waxay u dhaxeeyaan gudoonka baarlamaanka Galmudug iyo sidoo kale musharaxiinta u taagan hogaanka maamulka Galmudug gaar ahaan kuwa diidan ka qaybgalka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Galmudug ayaa gashay marxalad adag tan iyo markii la galay dhismaheeda. qaar kamid ah dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay ka hadleen sida ay u dhici karto doorashada madaxtinimada maamulka Galmudug xilli khilaaf uu ka taagan yahay arrimahani. shacbiga Galmudug aan ahayn madashan wixii ka socdana marqaatiyaan ka ahayn maanta hadii la yiri alla ilaahay dantaydu kuma jirto ee waa inaan lugta ku walaaqa ma aqbaleen anaga xaalad ila walaaqa ah ma aqbaleen anaga waayil hortiisa aan loogu barxa wixii aan u jeedna waan arkayna waan ogsoonahay marka doorasho way dhacaysaa wayna dhacaysaa waxaan u sheegaynaa dadkan ku howlan qaska Galmudug ma qaadi karto Galmudug hal ku dhagyadan qaraar ma qoriga isid ilaa aan ka qancaayo iyo ma qancaayo ilaa laga qaarajiyo sida runtii waa mahadsan tahay in badan aan u joogna meeshan doorasho loo mideysay inay ka dhacdo laakiin ma suurta gelin waxaan rajaynaynaa insha Allah mid loo mideysay inay dhici doonto laakiin ma u malaynayo khilaafkan oo taagan in biri ay doorasho dhici karto sababay qaabkaysu dhici karin oo samaynayna dhibaatadii awal haysatay unbaa haysata oo hadda sii xoogaysatay nimankii ahlu sunna oo inji degan shiir kale oo dirisla ah oo meesha doorashada lagu qabay rabay ah ma u malaynayo marka inta injina wadaadada ahlu sunna madaxweyne uu dhex taagan yahay shiir kalena ay rabaan in doorashada dowladda lagu qabto in suurtagelayso ma malay doon wuxuu ku dhimay run la isu sheego beenta laga tago hadii cid kale aqoonweydana odayaashii dadkan dhan walba odayaashu ahaa oo saleenka oo dhabta ah in lagu soo wareejiyo iyaga xalinayo u garqaadayo hal garab soo saarahay maxaad ku talin lahayd markii waxaan ku talin lahaa iska daba wareeg dan maahan baawar dowladda oo saaka cirada karbaasha haduusan muuqanin in odayaashii lagu soo cesho oo loo dhiibo oo Galmudugna saddex madaxweyne ma qaadi karto halka ugu dhaweyn odayaasha loo daayo ayagu inta isu tagaan ay hal go'aan sameeyaan laguna taageero ugu dambeyn waxaa khilaafku ka bilowday un kali ah guddiga doorashada gudoomiyaha guddiga doorashada waxay ahayd wax lagu kala tago ma ahayn waxaa la yidhi bahashu baroorta orgiga ka weyn macnaha wax oo process soo dhammaaday oo guddoonkii la doortay xildhibaanada ay iyagu qayb ka ahaayeen ay soo xuleen walaalaheenna sunna wal jamaaca ay 20kii ku lahaayeen ay wax ka doorteen in maanta muxuu ahaa waa ka baxnay iyo shaqo kuma lihin iyo wax laga fiicayaa waxaan marka qabaa berrito ballanta 2 bisha February 2020 shirka macnaha doorashada oo berri loo balansan yahay waa soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa inay ayaguna qayb ka noqdaan cid walba oo qayb ka ahayd ummadan maqiiqanan ninba meel istaagay madaxweyne sheegtay muftigeeda sheekh iyo ciroolihii mudnaan jiray kala maagayaan waa masiibo nahaysay allow maanta naga saar Galmudug midnimay rabtaa midnimo shacab bay rabtaa masayr ummad bay rabtaa mas'uul daacaday rabtaa milkiya sharaf bay rabtaa qalbigeeda isu mayro maxabba isu galiyo allow maanta naga saar mar labaad allahayow qorqor oo mas'uul oo madaxweyne laga dhigaan maanta doonaynaa yaa allow noo aqbal midaas waxaa jira wali khilaaf ka dhex taagan arrimaha Galmudug taas oo ay inta badan dadku ay dawladda dhexe ugu baaqeen inay wax ka qabato maadaama halkan doorasho ay ka dhacayso. Maxamed Cabdiweli Taxow TV-ga Universal Dhuusamareeb.
halka warkaasi aad kala socotaan daawadayaal oo telefishinka Universal studiisa magaalada Muqdisho markana akhbaraadka dibadda qaramada midoobay ayaa aadan u soo jeedisay dalalka ku lugta leh dhibaatooyinka ka jira wadanka Liibiya oo ay xilligan ka jiraan dagaalo u dhaxeeya dawladda taagta daran iyo kooxaha mucaaradka ee wadankaasi Liibiya. qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in xadgudubka hubka uu weli ka socdo dalka Liibiya iyadoo ay jiraan heshiis dhanka xabad joojinta oo toddobaadyadii la soo dhaafay dhinacyada siyaasadda ee wadanka Liibiya ay ku gaareen dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Berlin. war ka soo baxay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa lagu sheegay in wadamada qaybta ka ah heshiiska nabadda ee 19 bishii Janaayo ay tagtay ay weli dhaqan gelin heshiiskaasi oo aan weli si rasmi ah ugu dhaqan gelin magaalada Tripoli ee wadanka Liibiya oo ay ka jiraan colaado u dhaxeeya xogaga mucaaradka ku ah dawladda caalamka oo aqoonsan yahay ee Liibiya. qaramada midoobay ayaa intaa ku dartay in dalka ku yaala waqooyiga Afrika ay weli ka jirto dhibaato mas'uul ay ka yihiin wadamo u kala saftay ay leedahay qaramada midoobay siyaasadda iyo habmaamulka wadankaasi Liibiya. heshiiska xabad joojinta Liibiya ayaa lagu saxiixay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxaana qayb ka ahaa 16 wadan iyo hay'ado u ololeeya arrimaha nabadgelyada. kulan ka dhacay magaalada Berlin ee wadankaasi Jarmal ayaa dhanka kale la gartay in qaramada midoobay ay dhankeeda ka noqoto kormeer joogto ah dhaqangelinta heshiiska xabad joojinta ee Liibiya. warka ka imaanaya halkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in mucaaradka Liibiya ay ku hanjabayaan in ay dhulka soo dhigi doonaan diyaaradaha ku duulaya ama adeegsanaya garoonka diyaaradaha caasimadda Tripoli ee wadankaasi Liibiya. siyaasadda wadanka Liibiya ee uu hogaamiyo madaxweynaha wadankaasi hadda Liibiya talada haya Faisal Siraaji iyo hogaamiyaha hubeysan ee ka soo horjeeda General Khalifa Haftar ayaa waayadii dambaba taagneed waxaana ka jirta xiisad xoog leh tan iyo markii wadankaasi Liibiya maamulkiisii laga tuuray Muammar al-Qaddafi waqti hadda laga joogo dhowr sano. intaa waxaan ku joojinayaa wararka oo xilliga idinkaga imaanayay stuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho. tani kulanti dambe inta aan dib u kulmi doono warkan warka xiga nabadgelyo.